intaana filimka bilaabay waxaan ka codsanayaa inaad kanaalka subscribe dhaadaan muuqaalkan aad like saartid waa ku mahadsantahay daawashadaada sanadkii 2009 intii uu socday dagaalka u dhaxeeya Mareykanka iyo Taliban waxa ay saldhig ka sameysteen waqooyiga Afghanistan si ay ula dagaalamaan Taliban dadka deegaankan ay hubka uga dhigaan mid ka mid ah saldhigyada waxaa la oran jiray BRT oo ku yaala dooxo ay geesaha ka xigaan buuro saldhigan ciidamadu waxa ay u yaqaaneen dooxadii dhimashada maadaama ay geesaha ka xigaan buuro aad u waaweyn habeenada kamid ah waxa saldhiga la keenay askar cusub inkastoo aysan ku faraxsanayn haddana waxa ay la shaqeynayaan askartii hore subaxii xigtay askarta cusub waxa ay daawanayaan buuraha halka askarta kalena ay u sharaxayaan sida lama filaanka ah ee buuraha loogu soo weeraro waxa ay arkayaan saahid ayaa isu diyaariyay in uu toogto balse askari kale ayaa ka celinaya waxa uu sheegayaa inuu asagu karso doono isla waqtigaas Taliban waxay buuraha ka soo bilaabeen xabad isla markii askartu waxay bilaabeen difaaca inay galaan ayagoo isku dayaya inay ka jawaabaan weerarka iyo qaraxyada ka bilowda saldhigga maadaama weerarka oo lama filaan ahaa waxa ay xabadii ka dhamaadeen ciidanka Carter ayaa loo diray in uu keeno xabadaha laakiin xabado qaldan ayuu keenay kadib waxa uu laabtay dib askartu waxa ay sii wadaan dagaalka waxa ayna adeegsadeen hub culus taasoo si degdeg ah guul ugu keentay kadib Galgos waxa uu feer ku dhufanayaa Yangar sababtoo ah rasaas ayuu u dhaweeyay madaxiisa markii dambe Carter waxa uu keenay rasaastii saxda ahayd balse waxa lagu canaantay in dagaalka uu socdo oo dood galay meel u dhow askartu waxa ay arkayaan in wajigiisu ay qayb maqantaa wayna qaylinayaan ayagoo u yeeraya dhaqaatiirta dhanka kale Captain Kitty waxa uu canaantay askari daayar oo lagu qabtay asigoo cabaya xashiish waxa uu u sheegay in uu mushaarka ka jari doono Captain Kitty waxa uu darajada askariga u dhigay hoos waxa uu ka ilaaliyay firaaqa maalintii xigtay Captain Kitty waxa uu ku dhawaaqayaa in ciidamadu ay xiriir wanaagsan la sameeyaan dadka deegaanka waxa uu abaabulayaa kulan ay muslimiinta iyo dadka deegaanku ay ku yeelanayaan arrimo muhiim ah wax yar kadib askartu waxay tagayaan goobta shirku ka socdo ayagoo la kulmaya odayaasha deegaanka inkastoo dadka deegaanka ay hubaysan yihiin Captain Kitty waxa uu iska dhigayaa hubka si uu u muujiyo nabad iyadoo turjumaan uu yahay Maxamed Captain Kitty waxa uu odayaashu u sheegayaa in loo baahan yahay in la kala saaro shacabka iyo Taliban si loo ilaaliyo badqabka shacabka waxa uu ballan qaadayaa lacago iyo qandaraasyo dood dheer kadib dhammaan odayaashu waxa ay ku qanceen inay hubka dhigaan Captain Kitty waxa uu habsiinayaa odayaasha si uu ugu mahad celiyo habeenkii askartu waxa ay karsanayaan hilib si ay ugu dabaaldegaan guusha ay gaareen maanta maalintii xigtay mar kale waxay rasaas ka bilaabatay buuraha askartu waxay si dhaqso ah u galeen difaacooda laakiin maalintaas ma sii dheeraan weerarku daqiiqada kadib Harti waxa uu qolkiisa ka jiidayaa Yangar asigoo ku qaylinayo sababtoo ah Yangar waxa uu haday sawirka xaaskiisa Harti waxa uu Yangar ku amrayaa in uu bush af sameeyo asigoo ku raali gelinayo sawirka xaaskiisa laakiin Yangar waxa uu shuminayaa sawirkanka kale Captain Kitty waxa uu helayaa amar ah in gaari weyn oo dagaal la geeyo tuulo u dhow saldhigga oo uu ku yaalo saldhig kale askarta kale waxay uga digayaan wadada cariiriga ah ee ku taala buuraha Captain Kitty waxa uu sheegayaa in amaradu ay yihiin kaliya in la qaato isaguna uu wadi doono gaariga weyn saacado kadib gaariga yar ee laga hormarinayo gaariga weyn isagoo maraya wadooyinka cariiriga ah ee buuraha dulmara gaariga saayid ayuu u weyn yahay taayiradiis mararka qaar geeska ayay uga baxayaan jidka waxa loo sheegayaa markii la gaaro habeenkii waa inay istaagaan haddii ay dareemaan wax shaki ah iyagoo wadada ku sii jiro gaariga yar ayaa ku siganaya inuu wadada ka dhaco laakiin wuu badbaaday balse markii gaariga weyn dhaqaajiyay waxa uu si xun uga dhacayaa buurta kadibna waxa uu sameeyay qarax aad weyn taas oo keentay in Captain Kitty iyo askartii la socday ay dhintaan markii lagu laabto saldhigga askartii dhimatay waxa loo sameeyaa aas qaran muddo kadib Alaska ayaa imaanaya asigoo ah taliyaha cusub ee saldhigga loo soo magacaabay askartu waxa ay tusayaan saldhigga iyagoo uga waramaya dhibaatooyinka weerarada u imaanaya dhanka buuraha si lama filaan ah weerar qarax ku bilowday ayaa ka dhacaya saldhigga mid ka mid ah askarta waxa uu ku jiray Qubays waxa uu isku dayayaa inuu caawiyo saaxiibadii isagoo u soo baxay banaanka markii uu weerarku dhamaado taliyaha Alaska waxa uu dirayaa roondo kooxdu way raacayaan amarka taliyaha balse way ka cabanayaan roondadan ayagoo arkaya inay wax soo kordhayn Romaj waxa uu tusayaa askarta kale haddii uu soo weerar lahaa saldhiggan sida uu uga faa'iideysan lahaa meelaha jilcan sida inuu burburin lahaa matoorka iyo kaydadka maalmo kadib askari wuxuu arkayaa nin ka mid ah dadka deegaanka oo sawir ka qaadaya agagaarka saldhigga waxa uu eryanaya ninka laakiin waxa uu ku sigtay inuu baxsado markii dambe askari kale ayuu ku dhacay sidaas ayaana lagu qabtay markii taleefanka laga qaado waa la xirayaa shir kale ayaa la qabanayaa laakiin markaan qayb odayaasha kamid ah way maqan yihiin odayaashu waxay ka cabanayaan in lacagtii uu ballan qaaday Captain Kitty aan la siin laakiin taliyaha Alaska waxa uu sheegayaa in lacagta la bixi doono markii la baaro waxa ku jira taleefankan galabtii Maxamed oo ahaa turjumaan waxa uu ka imaanayaa tuulada isagoo uu sheegaya inay Taliban diyaarinayso weerar aad u ballaaran sababtoo ah tuulooyinka dadkii deganaa lacagtii loo ballan qaaday in ay waayeen balse digniinahan si dhab ah uma qaadan askarto sababtoo ah maalin walba wuxuu la imaadaa digniino cusub markii dambe taliyaha Alaska waxa uu hogaaminayaa koox rondo ah halka Maxamedna uu dhageysanayo raadiyaha Taliban balse waxa uu sheegayaa inuusan fahmin lahjada qaar ay ku hadlayaan
markii ay bundada yimaadaan askari ayaa loo dirayaa si ay u baaraan in bundadu ammaan tahay kadib Alaska iyo Younger ayaa raacaya bundada laakiin bundada qarax weyn ayaa ka dhacay waxa aana ku dhintay Alaska Youngerna wuu badbaaday Younger dhiig ayaa wajiga u halaabayo taasoo qalbigiisa ku reebta argagax habeenkaas askartu waxay isku dayayaan inay murugada isaga baabi'iyaan muusig Romaj waxa uu maqlayaa dhawaaq waxa uuna samaynayaa inuu baaro dhawaaqa waxa uu arkayaa askari gariiraya oo kaligiis ah isla markaana qora gacanta ku hay Romaj waxa uu si tartiib uga qaadayaa qoraga waxaana imaanaya diyaarad helicopter ah waxa ayna qaadaysaa askarigii dhibaatada maskaxeed ku dhacday Youngerna wuu raacayaa diyaaraduna waxa ay keentay taliye cusub oo lagu magacaabo Broward waxa uuna ku dhawaaqayaa in saldhigga la xiri doono June waxa uuna farayaa askarta inay xoogga saaraan xiritaanka saldhigga ilaa laga gaarayo waqtigaas maalintii xigtay askartu waxay taliyaha siinayaan aqoonsi uu leeyahay qof deegaanka ah oo ay ka heleen bundada agteeda waxa ayna aaminsan yihiin in uu leeyahay qof kamid ah shaqaalaha warshada biyaha ayna uga shakisan yihiin inuu wax ka fududeeyo dilka taliyaha sidaa darteed waxa ay doonayaan inay raadiyaan qofkaas taliye Broward waa u diidayaa in ay baaraan sababtoo ah wuxuu u sheegayaa inay khilaafsan tahay xeerarka dagaalka waxa uu u sheegayaa in arrintaas loo daayo sargaalka baaritaanka qosaysa dhammaan cabashooyinka Romaj askartu waxay ku dadaalayaan inay howlahooda joogtada ilaaliyaan mar kale weerar kale ayaa ka imaanaya buuraha askartuna waxay isku dayayaan inay ka jawaabaan Romaj waxa uu wacayaa taliyaha waxa uuna weydiisanayaa gurmad laakiin taliyuhu waxa uu weydiinayaa in marka hore la helo cadeymo sax ah si loo adeegsado hubkan kadib marka la xaqiijiyo waxa loo fasaxayaa hubka markii uu weerarku dhamaado taliyuhu wuxuu mar kale ka hadlayaa xeerarka dagaalka isagoo askarta u sheegaya in aysan suurtagal ahayn in la toogto qof looga shakiyo kaliya iyadoo aan la helin cadeymo la hubo ama hub Romaj waxa uu isku dayayaa inuu mar kale cabasho sameeyo maadaama weeraradu ay si joogto ah u socdaan balse taliye Broward ma doonayo inuu hubka ku qasaariyo meel cidla ah ama uu sii xumeeyo xiriirka dadka deegaanka ugu dambeystii taliye Broward waxa uu sheegayaa ciidanka inuu cadaadis kaga yimid dhanka madaxweynaha Afghanistan oo doonaya in aysan bixin bisha June askartana loo kordhi doono min $1,000 waxaana loo sheegayaa in bixitaanku ay suurtagal tahay bisha October inkastoo askartu ay u hoggaansataa amarada balse waxay maalin kasta sii nacayaan taliyahan gaar ahaan sababtoo ah qolkiisa waxa uu uga tagayaa dhalooyin uu ku kaadiyay isagoo askarta ku amraya in ay ka saaraan maalin kale inta ay qadeynayaan ayuu Carter u tagayaa taliyo inuu lagu magacaabo Banderman waxa uu u sheegayaa taliyahan in ciidanku ay sii nacayaan iyo amaradiisa ay u muuqdaan kuwa cabsi ku jirto wayna adag tahay inuu wax soo kordhiyo laakiin Banderman waxa uu sheegayaa taliye Broward in uu galay dagaallo inta ay galeen ka badan dhamaantood ayna waajib tahay in ay raacaan amarkiisa roob ayaa bilaabanayo Carter wuxuu askari kale kala sheekaysanayaa diimaha inta ay joogaan waardiyaha habeenkaas dhaqdhaqaaq ayaa laga dareemayaa buuraha waxaana meel fog ka dhacaya qarax aad weyn Broward waxa uu ogolaanayaa in la tuuro madfac ayagoo uga la jeeda digniin ahaan subaxii kulan ayaa la qabtaa si loo falaqeeyo xaaladaha haddii habeenkii Taliban ay wax weerari karto waxa ay haysataa qalab casri ah oo habeenkii wax lagu arki karo laakiin ma oga meesha ay ka heleen kulankaas waxaa joojiyay imaatinka odayaasha deegaanka odayaashu waxay wataan gabar dhimatay waxayna ku eedeynayaan in ciidamada Mareykanku ay dileen askartu waxay dareemayaan in gabartu ay dhimatay maalmo ka hor Taliban ay si kaas ah u dishay si ay ugu eedeeyaan ciidamada Mareykanka taliye Broward waxa uu go'aansanayaa in uu lacag siiyo si uu uga fogaado wax dhib ah inay uga imaadaan odayaasha mid ka mid ah odayaasha ayaa wuxuu sheegayaa inay og yihiin ciidamada Mareykanka inay bix rabaan taasoo ahayd xog sir ah aan la ogeyn si lama filaan ah odayaasha mid ka mid ah ayaa qayliyay isagoo sheegaya in ay qaniinay Broward waxa uu tooganayaa eygii isagoo canaanta askarigii haye muddo kadib askartu waxay ku madadaalanayaan tartan ah cidda ku adkaysan karta biyaha afka looga shubayo madadaaladaas waxaa joojinaya taliye Broward oo sheegaya in xilkii laga qaaday lana keeni doono taliye cusub dhowr toddobaad gudahood waxa kale oo uu xaqiijiyay askarta in saldhigga la xili doono 6 October Banderman ayaa taliye ku meel gaar ah noqday inta uu ka imaanayo taliyaha cusub waxa uuna u sheegayaa askarta inay la hadli karaan qoysaskooda laakiin aysan u sheegi karin in saldhigga la xirayo si aysan xogta u gaarsiin cadawgooda dhammaan waxay u cararayaan taleefanada si ay u xiriiriyaan qoysaskooda waxa ayna dareemayaan xamaasad iyo murugo markii ay maqlaan xaaladaha guryaha iyo sida looga baahan yahay inay soo laabtaan subaxii hore October 3 2009 Maxamed oo orday ayaa imaanaya saldhigga waxa uu u sheegayaa dhammaan dadka tuulada inay qaxeen sidoo kale saldhiggan ay ku hareeraysan yihiin kumanaan ciidanka Taliban mar kale looma qaadan hadalkiisa si dhab ah laakiin marka ay kaamirada ku eegeen miraayadaha wax ka arka meel fog waxa ay xaqiiqsadeen hadalkii Maxamed qaraxyo ayaa ku bilowday saldhigga askartuna waxay ka soo boodayaan sariirihii ay jiifeen si ay difaaca ugu biiraan dagaal toos ah ayaana bilaabmay buuraha ayayna ka soo daadanayaan ciidanka Taliban taliye Banderman waxa uu ku ordayaa qolka isgaarsiinta laakiin waxa uu ku dhacayaa dhulka markii qarax ka dhacay gadaashiisa kaamirooyinku waxa ay muujinayaan in Taliban ay hareeraysay dhammaan saldhigga meel badbaado ahna aysan jirin taliye Banderman si degdeg ah ayuu u qeylinayaa raadeerka isagoo dalbanayo gargaar degdeg ah laakiin waxa loo sheegayaa in duqeynta cirka ay imaan karto 2 saacadood kadib gaadiidka
iyagoo rasaas iska ridaya. Waxa ay arkayaan inay rasaastu ka dhamaanayso. Carter waxaa loo dirayaa rasaasta, sidaa darteed Carter waxa uu cararayaa qolka kaydka si uu u soo qaado rasaas dheeri ah, laakiin way ka fogtaa goobta kaydka. Askar badan ayaa ku qasbanaaday markay rasaasta ka dhamaato inay ku dhuntaan gawaarida. Dhanka kale Romaj waxa uu ku wareegayaa saldhigga isagoo ciidamada ku amraya inay dagaalamaan. Kiik wuxuu ku dhuumanayaa dhisme si uu qasnad uga bedelo qorigiisa. Si degdeg ah ayuu uga baxayaa si uu weerar u qaado. Si lama filaan ah qarax ayaa kala tuuray, kadibna waa sooxay. Saaxiibkii ayaa u jiiday gudaha, waxa ayna dareemayaan in laga gacan sareeyo. Saahid si degdeg ah ayuu u ordayaa taliya Banderman, waxa uuna ka baryayaa in gargaarka degdega ay helaan una baahan yihiin duqeymo cirka ah. Waxa uuna u sheegaa askartu inaysan sii dagaalami karin haddii aysan haysan rasaas. Banderman isagoo careysan waxa uu sheegayaa inuu sameeyo waxa uu awoodo. Waxa uuna si xoog leh uga saarayaa dhismaha. Isbitaalka dhaqaatiir yar ayaa joogta, waxa ayna ku mashquulsan yihiin daaweynta dhaawacyada, mana awoodaan inay u tagaan kuwa ku dhaawacmay difaaca. Hal askari ayaa isxilqaamay, waxa uuna bilaabay inuu ku dhex ordo saldhigga isagoo ka dhuumanaya rasaasta iyo qaraxyada. marar badan ayuu dhaawacmay intii uu socday. Ugu dambeyntii waxa uu gaaray dhismaha. Markaas askarta kale ayaa caawinaysa, waxa ayna saarayaan sariirta dhaawaca. Waxa ayna bilaabeen inay ku ordaan isbitaalka ayagoo ka gambanaya rasaasta. qolka saayida waxa ka jirta buuq aad weyn. sababtoo ah askari kasta waxa uu rabaa inuu rasaasta geeyo meel kasta oo kamid ah saldhigga. Kuuso waxa la siinayaa rasaasta loogu talagalay kooxda ku xaniban gawaarida, laakiin isla markii uu baxaba waa la toogtay. Askari kale ayaa tuuraya bombada qiica si ay uga gambadaan, waxayna dhaawaci u qaadeen isbitaalka, laakiin nasiib darro isla markii uu dhintay. Kiik weli wuu nool yahay, laakiin garaaca wadnihiisa saayid ayuu u sareeyaa. Carter waxa uu aruursanayaa rasaasta inta uu qaadi karo, waxa uuna bilaabayaa inuu dhex maro saldhigga isagoo isku qarinaya darbiyada. Ugu dambeyntii waxa uu gaarayaa mid kamid ah gaadiidka, waxa ayna wadaagayaan rasaasta. Romaj waxa uu sii wadayaa inuu si qarsoodi ah ugu dhex wareego saldhigga isagoo adeegsanaya hub kasta oo uu heli karo. Bam gacmeed ayaa ku qarxaya meel u dhow, waxa uuna boodayaa si uu uga fogaado qaraxa, laakiin gacantiisa way dhaawacmatay. Waxa uu isticmaalayaa raadiyaha asigoo raaligelin u diraya askarta ku jirta gaariga, maadaama uu ka shaki qabo inuu gaari karo. Waxa uu tagayaa isbitaalka asigoo hubinaya xaaladda Cake, laakiin wuu dhintay. Romaj aad ayuu uga murugoonaya arrintaas, waxa uuna soo qaatay qori si uu u toogto shishyaankii toogtay askarta badan. Ugu dambeyntiina wuu dilayaa. Dagaalkii ayaa sii soconaya iyadoo qaraxyo weli ay dhacayaan. Carter wuxuu rasaasta u geynayaa qolo kale oo ku xaniban gaari, laakiin markay isku dayeen inay dhaqaaqaan, gaarigu waxa uu ku dhagayaa meel dhagax ah. Markaas ayay ogaadeen inay Taliban soo jebisay difaacii saldhigga. Kooxdii askarta waxay ka degeen gaariga si ay u dagaalamaan, laakiin Carter si dhaqso ah ayaa loo dilayaa, kuwa kalena waa la laayay. Hal askari kaliya ayaa ka badbaaday, waxa uuna u cararayaa Romaj si uu ugu wargeliyo. Romaj iyo Saciid waxay isla markiiba bilaabeen inay toogtaan kooxdii soo jabsatay saldhigga. Askarta waxaa la ogeysiinayaa Taliban inay soo jabsato meelo badan oo kamid ah saldhigga. Taliya Banderman waxa uu helayaa wicitaan sheegaya in gurmadku soo dhow yahay. Qorshuhuna waa in ay qodaan difaac adag si ay isaga caabiyaan inta gurmadka cirka ka imaanayo. Laakiin Romaj ayaa soo galaya oo ku doodaya in saldhigga dib loo qabsan karo. Waxa uuna sharaxayaa in weli rasaas badan ay ku jirto qolka sahayda. Qorshihiisuna yahay in uu keeno qorshe uu ku xiri lahaa irida weyn. Qarax ayaana ka dhacay qaybta isgaarsiinta. Banderman waxa uu ogolaansho siinayaa Romaj, sidoo kale wuxuu jarayaa dhammaan isgaarsiinta si aan loo dhageysan hadaladooda. Kooxda ku xaniban gaadiidka wax war ah kama helayaan askarta kale, wayna ka daaleen sugitaankooda. Waxa ayna go'aansadeen in ay tilaabo qaadaan, waxa ayna ka degeen gaariga ayagoo bilaabay orod. Carter ayaana siinaya daboolka rasaasta la isaga dhigo, laakiin isla markiiba mid ayaa la toogtay. Carterna si degdeg ah ayuu uga cararayaa gaariga isagoo la jiro saaxiibadiisa kale. Waxa uuna arkayaa askari gurguuranaya oo dhiig baxaya, waxa uuna qaatay daboolka rasaasta la isaga dhigo si uu u caawiyo. Carter waxa uu baxayaa si dhaqso leh, waxa uuna gaarayaa askarigii dhaawacmay. Lugtiisa ayuuna ku xirayaa ka hor inta uusan soo qaadin. Si degdeg ah ayuuna u soo qaadayaa. Romaj waxa uu aruursanayaa xoogay askar ah, waxa uuna si dhow Malaysia uga weerarayaa xerada isagoo iska indhatiraya amarkii Taliya Banderman ee ahaa inuu sugto qoryaha waaweyn. Kooxdii waxa ay bilaabeen inay toogtaan wixii ay arkaan oo saldhigga soo galay, kasta oo qiic ka buuxa saldhigga. Kadib markii ay dileen tiro badan oo kamid ah dagaalamayaasha Taliban, waxa ay gaareen iridda hore ee saldhigga. Romaj waxa uu sugayaa inta difaaca cirka uu ka imaanayo, isla markiina bam qiica ayaa kor ka soo dhacaya, taas oo muujinaysa in taageerayaasha cirka ay yimideen. Helicopter iyo diyaarado isqarxinaya ayaa si degdeg ah u dilaya ciidanka Taliban. Carterna waxa uu ku dhiiradaa in uu ka soo dego gaariga mar kale, waxa uuna sii wataa dagaalka isagoo raadiyaha ka xaqiijinaya in duqeynta cirka ay tahay ciidankooda. Markaas ayuu ordayaa gaariga, waxa ayna isticmaalayaan raadiyaha si ay ula xiriiraan Banderman, kaas oo sharxaya in bam weyn oo dhici doono mar dhow. Carter iyo saaxiibkii waxa ay saarayaan kartii dhaawaca ee sariiraha dhaawaca, waxa ayna ordayaan si degdeg ah, ayna gaarayaan isbitaalka. Dhaqaatiirtu waxa ay shubayaan dhiigooda. Dhammaan askarta badbaada waxa ay bilaabayaan inay dhiigga u shubaan saaxiibadood. Markii taliye cusub uu yimaado isagoo wata gurmad, inta badan saldhiggii waxaa burburiyay qaraxyadii Taliban. Inkastoo weli ay ku sugan yihiin qaar kamid ah Taliban buuraha u dhow saldhigga, haddana waxaa la sii raadinayaa ayaga si loo duqeeyo. Saldhigga dhexdiisa ciidankii joog waxa ay bilaabayaan iyagoo dhammaan dhex maraya saldhigga si ay u raadiyaan meydad. Maxamed oo ku dhuumanaya kabar ayaa laga soo saarayaa. Markii uu taliyaha cusub uu soo galo, Banderman waxa uu ooyayaa isagoo soo gudbinaya gabi ahaan khasaaraha gaaray. Taliyaha cusub waxa uu ku amaanayaa hoggaankiisa wanaagsan, waxa uuna ku dhawaaqayaa in berri la qarxi doono saldhigga ka hor inta aan laga bixin. Habeenkaas askartii badbaada way isu yimaadeen,
ayagoo qaadaya hees macsalaameyn ah ka hor inta aysan diyaaradaha helikobtarta ah aysan ka qaadin saldhigga. Markii ay duulayaan waxa ay daawanayaan qaraxii u dambeeyay ee burburiyay saldhigga. Dhammaan waxaa la siinayaa xiddiga sharafeed ciidankii ka dagaalamay saldhiggaas, halka Carter iyo Roma General unugyadii ay ka tirsanayeen kuwa ugu abaalmarinta badan dagaalka. Waad ku mahadsantahay daawashadaada. Haddii aad inta nala soo gaarto waxaan kaa codsanayaa inaad like, subscribe, share.